qocha Soomaalidu waa dad aad u firfircoon markii shakhsiyan loo eego Soomaalida Finland sida Maxamed sheegay oo ah dad aad horumar u sameeyo shakhsi horumar u sameeyo xataa qaarkood group horumar u sameeyeen weeyo nooc walba la ka helaya dhaqaatiirana la ka helaya looyareen la ka helaya waxaan la ka helaya dad aad meel sare ka jooga nolosha wadankan midaynta marka laga hadlayo marka waa nuucee midaynta aan doonaynaa inaan helno hortideeda wallahi kullay sidii aad sheegteen macnaha ummadda marka la midaynayo macnaha aad bay u adag tahay waxa qof walba wuxuu doonayaa wax lagu midoobayo horta macnaha isaga inuu qayb ka noqdo أنا واحد من سنة Somali ليتو معناتها يجان معناها ما لها ماشى أو Somali ليتو وأور Somali أورويين قف كماشى ويعد Somali كارت سبورت يعني أنا سبورت كأنا جمالي قفل بو عيارة قفل بو سبورت كقيب قاتم معناها قيب بو إيجا يعني وحاني الله يا ما ويمدو حتاي إن أمد هذا الجرتاع ذاك إن أورده وين Somali جيران إن الميل ولا فريسان ميس كهوستيس سوي مادان ويكولا هالدان sidee uga gudbi karnaa caqabadaha hadda in haysta Maxamed yes Maxamed Somali Liito sida la sheegay waa urur matala Soomaalida wadankan Finland oo dhan degan waan isla ognahay oo eedo badan la idin soo jeediyaa markasta eedahaas la idin soo jeediyo maxaa sababay aad isleedahay matashaan maxay sad tahay weyga oo qofka raba inuu member lagu shaqeeyaa matalaada macnaha in Soomaalida la matalo way jirtaa laakiin way Soomaalida lagu dareensi karo kaleeto xataa kuwa inay eedeynaya ma jirtaa inay kamid yihiin ururka Somali Liito oo qofku laga doonayo anigoo kale haddaan raba inaan ka helo balbel waxa afariska lagu yiraahdo oo macnaha inaan ka helo waxaan u baahnaa inaan ka helo Somali Liito maadaama aniga matalayso taas Soomaalidu ma ka heshay aad isleedahay horta waxa ugu muhiimsan meesha waxa weeyaan waliba Soomaali haysata waxa weeyaan markaynu kala garan weyno maxay deynay sheeg priority-ga ama wixii sida arrimuhu u kala horeeyaan aynu arrin weyn oo masiiriya arrin yar oo shakhsi amba arrin yar oo laba qof oo saaxiiba maxay soo dhex gartay amba laba qof soo in wax weyn ku dumino waxaad arkaysaa keenii mutacallinka ahaa يكني شلة طالع محوها إبرك عم بالكولشتها إني بريطولة كواد مرميان حيدا ساحات حيدا نيشة من الخضر مرة وتذكي أي كلا سوء إلهيهن وركبان رميسنا ركوا وحنون كلا جرنا أي ما تذكي بقى سقيسا ومدش سيو ساعتها أنا كماشي على مكوحي وماشي وحقبت بالسكويرها ما هون تذكر السكاد لا أيه كبس وقعد بهدي Somali Liito لبدي السنة أنا نوين هي haddii ay intaasoo muxuu ahaa sheeg waxaan la yiraahdo ka hortag aanu dhiibnay muxuu ahaa sheeg dawladda oo maxay ahayn maadaama ummadda aan u dadaalayno intaasoo warqadood oo dawladdu naga soo codsatay waxa la bedelayaan ku niri waxa joojiya amba waxa qabtay intaasoo iskuul Soomaalidu u badan tahay haddii aan anagu hor istaagno niri lama xidhi karo Soomaali u badan dadkii Soomaalida la celinayay maalinta maanta haddaanu nahay maxay qoladayada marka Soomaali tahaysa inay yihiin qolada quraata ee hay'ad weyn oo institution oo dalkana ka dhigtay dacwad baarlamaanka taalo dadkan Soomaalida la celinayo oo haddana anagina lagu dacweynayo in anagu dadka celinayno marka waxaan garan lahayaa dadku waxa ninkii baa yiri maana wala masaacadan baa laga heesaya anagii dhignay maxay dacwadda ka dhignay wasaaradda arrimaha gudaha ee dacwadda gudaha noo taalo ba intuu nin jahwareersan iska soo fadhiisto maxay meediyada muxuu ahaa ayuu oranayaa Soomaalidu maxay Soomaalidu dadka celisa marka arrinka jirta wuxuu yahay Soomaalidu haddii qurbaha nimid waxaan ku fashalinay adaabtii baan ku fashalinay qof baa iska soo galaya maxay sheeg social media oo dadkan maxay islaamahan iyo raggan iyo dadkan kala duwan meesha soo fadhisanaya oo iyagu cilmi nafsi hayo dadkii baa intii markaa wax baafiyaan ummadii shacabkaana ma kala waxaan iyagu maxaa u diiday inay kala soocaan oo eegaan imka anaga cid noo timid ma jirto انتو maxaad qabateen laakiin adinku soo maana dadka hadda midaan idin sheegayso waa arrin wanaagsan hadda midaan idin sheegayso inaad maaragtay baarlamaanka geyseen dadka la celiskooda waa midii walwalka xoog aan ugu haysay aniga laftarkaygu meeriyada aan 10 jeer kaga hadlay laakiin ma ogi in Somali Liito ay shaqadaas qabatay soo xaq uma leeyahay marka in anigana la igoysiiyo shaqaad qabanaysaan sidee dadkii u midoobaan oo kugu soo xirmaan because haddii aanan ogeynba wixii aad qabato wixii ay si wax hoos u dhacay ay yihiin anigana aan la soconaysan ii muuqanin markaas waxaan isleeyahay war nimankaan nima wax qabanayna ma hadda maxay weli mid baan ku sheegaya anigu imka adigu shaqad ka shaqaysaa
أنا شقن كشقة إنجنير باني شن عروران لي sanadkii hal maxay projectyada project kamida waxa noo yimid 1600 oo jeer baan dad ayaan qaabilnay waxa ka macnaatay maalintiiba 5 qof dadkaas waxay u badan yihiin hooyooyinka oranaya intay wiigba laga soo wareegay hooyo kule aan ku dhamay waxba iga xidhanay ilaa iyo bangi awkamaatida ma ku soo shubayay wax noo buuxiya marka waxa weeyaan anagu dadkaasaan ku mashquulsanay noo kaale wax nagu tiraahdaa intay hooyayni timid intay maxay inay sheeg dad bad caawisan arrinkan anagu waxaanu qabanno sanad walba waxaanu ka soo saarnaa qoraal oo la yiraahdo toominta kartamus wixii aanu qabanay hadiina Soomaalidu marka waa public wuxuu ku jira internetkay ku jira meel walba ku jira dadkii hadii ayna galeyn oo waxaan anagu aan qornay ayna soo akhrinayn oo aan galeyn oo nin walba xoog leh oo raba inaan gurigiisa intaan ugu tagno bam ka sinaan ku nala waxaan qabanay taas suurta gelimayso waaya qooje iyo kulligiinba waa ku soo boodi kartaan arrinka waa arrin muhiim ah hadii bada Soomaaliyeed ay sidaas maxamed banoo sheegay sidaas hadda shaqada xoog leh u hayaan matalaana Soomaalidii adinkuna laga yaabo inaad ururo kala batashaan saddexdiina hadda faksal meesha ila fadhiya maxaa diiday in la hoos tago Soomaaliyeed ururada dhan la hoos geeyo ayaga maaragtay ay noqdaan dadka leadka wada ma loo baahan yahay marka ururada kale to hadda sida nimca sheegaysto SS ta ka bilaabanaya kulligood kolley ururada macnaha de waa loo baahan yahay Soomaaliyeed macnaha kaligeed macnaha kuma fidno ururada loo baahan yahay waa kuma marka ururka waxa loo baahan yahay in shaqo wada dir la wada qabto ururada ay wada shaqeeyaan waa muhiim hada aniga Soomaaliyeed yeesan baan ka ahay soo saaru maxamedna uu og yahay memberka aan ka ahay macnaheeda ma taqaana inaan ka tirsanahay oo aan waxa ay qabtaan la qabto laakiin waxaan ogahay waxa ay qabtaan baan ogahay anna waxaan qabtay ogi okay Cabdi Fataax wala hal mid baa wanaagsan annaga dirtaan inta badan anay Soomaaliyeed dad midaysan ma nahay cusuridan xoog saareen moogtahay markay ku hadlayno Soomaaliyeed Soomaali filna ka jiro weey oo sharcigiisa iyo wax qabadkiisa uu ku saleysan Soomaalida Finland degan inuu adeego oo Soomaalida Finland degan ka shaqeeyo oo matali karo hadii dhibaato ku timaado macna waa sharcigiisa yaalo weey waxaan xubin ka noqon karaa ma ka ah shakhsiyaadka caadiga iyo ururadii marka waxana waxay taan marka yaa Soomaaliyeed xaq u leh oo wax ka bedeli kara dabcan qofkii marka xubin ka ah wax ka bedeli kara ururka xubin ka ah iyagu adeegtaa waxay u adeegtaa Soomaalida dhan qof kasta u furantaa weey anoo ka soo shaqeyn jiray Soomaaliya saddex sano ka soo shaqeynayay inay Soomaaliyeed noqoto urur dadkiisa sidii waxtar leh ugu adeeg kara inay Soomaaliyeed noqoto baan ka soo shaqeynayay waa mashruuc dawladda bixisay waxana aqoon fiican baan u leeyahay adeeg meesha uu yaal oo dad shaqaale jooga oo dadku adeegaya marka dadka la doonaya marka ayagu inay aaminaan ee tagi karaan ee ka doonan karaan wixii adeeg ay u baahan yihiin taa waa adeega macna waxaan aaminsanahay mashruucyo badan bay heleen oo dadku lagu adeegayo hadda way u fududahay waagii hore mashruucyada dhaqaale badan ma jirin oo inta badan si iska wax qabsa ayaa adeeg lagu sameyn jiray laakiin hadeertan shaqaale jooga oo adeeg iyo fursadii way jirtaa ee dadkii ayaan ku xidhneen intooda badan oo aan tagayn meeshii dadkii kuwa tagana waxay uga badan way helaan taa waa adeega weey awoodeedu way leeyihiin laakiin miyay matasha Soomaalida Finland matalaadaas la doonaya dadku inay fahmaan matalaada waxay tahay adigu waxa ku matalaya cidda adigu aad doonto inay ku matasho haddii dhibaato kugu dhacdo waddanka Finland haddaad ku jirto ururka mataqara shaqaalaha ururka beeraleyda member xubin baa ka taa lacag bixisa way ku matalaysaa xaqaada ku soo dhicinaysaa marka Soomaaliyeed macna Soomaaliyeed haddaadan member ka ahayn kuma matashimeed ka wadaa ma Soomaaliyeed marka ahayn adigu saameyn kuma yeelan kartid oo adigu wax wax u aragto ma gudbin kartid waana xubin ka tahay marka hore haddaad doonaysid inaad wax ka bedesho laakiin inaad adeeg uga baahato adeeg dawatay kartaa ilaa ma